أنا هاجرلي وحقوق وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لو دوحي محمود عبد الله عبد الله مقعي قال waxaan ku magacdheeray abwaan barjeex abwaan maalintii 12 May ayaa foodo inuu soo haysa bal dareenka ay ku sameynayso oo noo warmay dareenkaygu 280 buu taagay maanta waxaan diyaariyay gabay ka turjumaya qadiyada wadankeena maalinta qaranimada Soomaaliland iyo sida ay inooga go'an tahay cid kasta oo madax banaanideeda soo faragelisa inaynu gacan bire kala hortagayno gabayga marka hore waxa la yiraahdaa damac gabayga ayaan bilaabay gabayga wuxuu u dhacay sidatan bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaali waxa deeqo doonaya nabad intaasaan dadaal ugu jiraa daawo loo helo hayeeshe waxaan doonayay damac heshiin waay dib inay u kala maagtay iyo dowgal baa dhacay dibina la maamula ma aha doorkay difaaciyo warmaha inaan badsaday lagu dareensiin ninka maanta ila doodayo damacu ka baydhi haday doodi furantana run baan idin dareensiin inta dunida booba wuxuu daanka ku aroorsho dib uu qoomameeyaa siduu daayin ka yidhi waa lagu duloobaa gartii duudsi loo noqo dowladnimada Soomaaliland dunidu may sheegto afarta dayin iyo hayin miyaan dareensiin daruur iyo sidii roomiya daadku mulaciyay wax kasto inaga daahana daacad ma u sheeg darisinaynu noqon iyo xaqayb daayinka qoray dad walaalaya waxaanu nahay labadan daamood midkii dunida sii joogi la daayinka garan waa intood sidii dahab maroon lay dawariyay bal maxaa la iduri hadan dawladnimo qaat inaydaan dunkabanimo u dhalan ama dulqaadkeeda markay doobi xoor liyahay daawo iyo shaal danawada irmaan iyo markii darar la maalay wadigii daadiyeen nayaanihi dalab wadinkii daadiyeen nayaanihi dalab ee diideen nayina nabad u deysaan afarta dayin iyo hayin biyaan dareensi daruur iyo sidii roomiya daadku mulaciyay wax kasto inaga daahana daacad ma u sheeg waxaan nahay dad nabadeed mid baa dunida aafayn dadkii nabigu dhalay iyo Faadumaan diir ku leeyahay dushana Soomaali baan ka ahay diirka oogade dirisnaga ma cawdiyo dadkii nala midoobay in wanaaga laygaga dayda waa daliil qoran waqalkii iyo daruurihii cirka soo dul joogsaday Soomaaliland ninkii doonayo daacad ugu kaalay afarta dayin iyo hayin miyaan dareensiin daruur iyo sidii roobiya daadku mulaciyay wax kasto inaga daahana daacad ma u sheeg hadba madaxna dadkayga iswada aaminay kala dambaynay shacabka dulqaad iyo xaraga lagu dulmaashay isku duubni iyo wada jir baa daayin ku ogaay hadal dabacsan oo fiican baan daawo u lahaay duulka inaan mahad u noqdo damacu ii sheeg dalkayba barwaaqoobay oo daawo furayaa waa loo dagaalamay runtii dawladnimadaas duurjoog rag baa ugu ahaa dhaxanta dayreed daraadeed rag baa ugu nafaxay maalin dirireed dabka la isku wada shubay inay dararto maandeeq alla ilaahay rag waa damac intaan dunida sii joogno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi